gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga UCID Cabdinaasir Xasan Buuni ayaa maanta ka hadlay wadahadaladii u socday taas oo xisbiga mucaaradka wadani hore u sheegay inay joojiyeen wadahadaladaasi kadib markii ay isku afkaran waayeen xisbiga kulmiye iyo xisbiga UCID. Cabdinaasir Buuni gudoomiye ku-xigeenka xisbiga UCID ayaa sheegay inuu faragelin ba'an ku hayo xisbiga kulmiye gudidii loo xil saaray inay dhexdhexaadiyaan wadahadalada xisbiyada si loo gaaro doorashada la filayo dalka inay ka dhacdo dawladda Soomaaliya maalmihii dhaweeyay xisaabta qaranku dhamaantiin warkooda wada haysiin iyo kulamadii iyo shirarkii istaba jooga ahaa xisaabta qaranka u socday marka iyo hakintii ku timiday wadahadaladii iyo macluumaadkii ay saddexda xisbiba si kala gaargaar uga soo saareen wada socoteen marka mabaan jeclayn inta badan inaan maanta hadlo laakiinse waxaa jirta in saaka waxa labada xisbi ee kulmiye iyo UCID ku soo korodhay gudidii aan ku qadarinay maadaama ay arintii wada hadalada xisaabta qaranka u socotay oo muddo hore hakatay waxa Ilaahay fadligiisa isku soo celiyay oo sabab u ahaa oo sacyi badan u sameeyay odayaashii dalkan madaxweyne ku-xigeenada ka soo noqday iyo aqoon-yahano kamida waxa uu ururada aan dawliga ahayn waa kii madaxweynuhu ku gudoomiyay xarunta madaxtooyada halka waxa la isla qaatay in wada hadaladii xisaabta qaranku ay sii socdaan gudiyadii ay shaqeeyaan dhammaantoodna waxa odayaasha iyo hogaamiyaasha xisbiyada iyo xukuumaddu bay isla qaateen in dalkan xil ka saaran yahay marxalada adag aynu marayno duruufo siyaasadeed inagu gudaaman yihiin gudaheena dhaqaale xumo iyo sixir barar iyo dhibaatooyin badan ay jiraan ummadda loo tiro aan lagu dul murmin iyadoo intaas oo dhan la qadarinayo waxa la isla qaatay in wada hadaladii la sii wado si masiirka ummadan go'aan looga gaaro oo dalkana doorashooyin hore u sii socdo wala waxa weeye doodaya xisbi kastaana wuxuu ilaashanayaa siyaasadiisa gaarka iyo taguud ee qaranka qodobada laga wada hadlay wada socotaan oo 5 qodob ahayd gudiga doorashada kamid ahayd oo horay labada xisbi ee UCID iyo kulmiye uu sheegay inay kalsooni ugu qabaan xisbiga wadanina uu sheegay inuu kalsoonidii kala laabtay qodobkaas aanu ajandihi aanu samaysanay ka dhignay inaanu ka wada hadallo muddo 4 maalmood inaanu siino ismarwaa qodobkaasi ka dhashay ayaa wuxuu sababay inay wada hadaladii hakadaan iyadoo qodobadii kale ee waxa weeysan qaybsigii dhaqaalihii kootadii xeerkii waxaas oo dhan u dhiman yahay hakadka ku yimid wada hadaladii xisbiga wadani uu hadlay bulshadiisii iyo wargeliyay labadii xisbi kale markaanu shirno waxaanu isla qaadanay horta inaynu isku nimaadnaba sababteeda waxa lahaa odayaashii dalkan qiimaha ku lahaa iyagii aynu warrano intaynaan bulshada u warramin waa Cabdiraxmaan Jumbo Sam News TV Hargeysa.